waxaan ka codsanayaa haddii la yidhaahdo qofka halkiisii muu dhigin dee qof kale qofkii maaha وارن haddii لكن aan سكير haddaan halkii dhigo heestiina qaado dee qofkii baan ahay marka smaajkaas wax isku dayban inaan qaadi karo oon cod anigu aan leeyaho kayga ah aan ku sii dayn karayo marka إنه سيدا بل هي ما هاد ololreenkan caashaqa igu helay adduunli ulashada kalgacalkee urnibiiri iga galay amba baaxa tallaabada anigoon italhayn naftu orodka racdada waxay yaami kugu tiri soo aragtideedii indhuhu dooni maayaan annasaw ubadkayga maqan eegi maayo urkunkiisa jaadka sheekhii loo urkumayo abaadirow soo ururi caashaqa ooha ooha waxaan copyrightaygu isii ayaan u leeyahay hayst waa isii waa salaamatii هل حبوا شبا أيانا نقول السيجارة كاجا عدسانية way jubbana mana isku dayaya horta waxaan idin sheegayaa in badan sanado badan waxa lagu dhex soo daayay 2010 haddii cimrigii tahay tan soo wado waa la yaabi doonaa دوبي بان سيجارة كاجا عدسانية may ubaxan ku qaado ubaxyahow bilaamay ubaxyahow bilaamay ogada kan nuraa egmada jallecada indhahayga naxariis adiga ku beere ama qurux u dhalatay allihii ku uume sharafkugu manaysto indhergarad ku jecelo ku ooman baan ahay lagu kala hilaaciyo roob aroorya daayay agagaarka beerkiyo wadnaha ilaa xidhkiisa rabbi kugu abuure wadii ahaato iimaanka deeqdaye naftu ka ogolaataya ifka noloshu waa sagal يا سلام aanay gudtii gabagabadii barnaamijka halkan waxaan ka salaamayaa oo aan rabo caaw inaan ka xuso mataankaygii maskooda garanaysa ma fiila marka mataan idhahdo walaalkay iyo carruurtiisa liibaan maxamed nuux iyo carruurtan adeer ku ahaa oo aan rabo caaw in halkan ka xuso walaalkay I love you waxaan ku leeyahay isii mar labaad waxa kale in halkan ka salaamayaa wiilkayga aniga wiilkaygii ayaan halkan ka salaamayaa nasri yare nasri ayaanle mahad maxamed nuux oo stockholm ku nool iyo hooyadii oo mar walba salaanta la socota waan salaamayaa waayahay mahadow intaynaan weli kaa bixin dhankii heesaha halkaasaynu ku tiirinaynaa anigu inta badan in labadaba ku fiican baato dadkana ka qosli aad mataqaanaa ilaahay dad baa jira uu dhaliyo waa sanad cusub oo aynu sagootinay kii hore kii dambena aynu soo dhaweynayno in leenahay hiigsi cusub iyo himilo cusub iyo weliba yididilo cusub oo markaas uu inala soo gelayo fan baanaynu ku jirnaa iyo suugaan bal mid ka mid a sheekooyinka fanka kaala kulma ka maqasho ka dheegato lagaaga sheekeeyo qaarkood aniga waad ka sheegayso laakiin adaan dalabka ku siinayaan kulay bal mid ka mid a sheekooyinka horta laba sheeko kooban baan hayaa waay mid nima saaxiibana iga sheekay aad bay qosol badan tahay aad sabab ka dhacday haddaan keenaya baa mid sheekada magaceeda haddaan keenaya Soomaaliga intaas ku bartay waa loo sheegay Ethiopia ninka haddaan keenaya marka guri kiraa la soo doontay gurigiiba caawa hadduu carbuuntii baa la dhiibay hadda la isleeyahay gal walaal guriga soo ma qurux badnaa haddaan keenaya buu wax walba dadka mid marka labada nin mid la socdo waxa ku yiri markii dambe walaal gurigaaga baranbari kana camiyo leeyahay marka soo haddaan keenaya hadda isaga kii hadda wuu keenaya هذا قال له قال عقتي وياه هذا كيري من عاده يقول دواتها من واحد اللي هذا كرس على عبده كرس على عبده كرس على عبده شكل اللي هذا وي وعان عجيب وتنسع ذي هي كرس على عبده لمبا أرس واحد اللي برقي الدرار لكن يرك كلا تجيب الدرار بالقحي اللي تجي أيام لمبا يرى لعبته غير لماتي دبيته مركا إن سوى جوجا الدرار أيام مركا قحوتي اللي جوجا هذه جوردتك ديفتي الدرين يدو كم وقته qofka qurbaha ka yimaada yamanna ha noqotay uu dhalaalaa isagoo yara bacbaca nin bacbaca halka ka soo baxay waa la wada eegay ninkiiba wuxuu ku yiri markaas uu soo dhawaado salaamu calaykum salaanta la boobaya calaykum wasalaam xaaji markaas wuxuu ku yiri ma fiicanta ina abarsiid walaal
nin baa laysoo tilmaamay mid ila jooga ha ninkii magaciisa u sheegay ninka waa caan imika wax limaamaha jira ma raba in halkaa ka sheego haye hebel ma joogaa markaasuu yidhi ha war hebelo waa laga kaa soo diro markaasuu ku yidhi ayna jiita markaasuu yidhi min sacuudi arabia haye minaa sacuudi arabia ninkan 40 sano uu joogay laakiin waa yaro basaarsaday yaro xayraamay aduu walaalkii buu gartay war Soomaaliya ninkii walaalkaa shaqada siiyo injineernimada Soomaan qoran oo adduunka ka sheekeeyay dabeetana ninkii baa ku yidhi maxaad u socotaa kuna waxaan rabaa gabadh aan seelnay shalay inaan guursado gabadhaan naftigeedaan rabaa inaan hees u sameeyo haye wada xilligaasuu rabaa inuu hees sameeyo dabeeto waa lagu sameynaya kurisma waa le dee iminkaanu samaynaa annaga wuxuu diidaya inuu kharash ku dhaafo dee haddaa ma samaynaya hadda haye okay nidde hee lagu yaqaanay maaha waana meesha iska fadhiyo lacag u baahan saaxiibkii kusoo dhaa ninkaasaa sameeyo kale waama sameeya baan leeyahay wuxuu ku yidhi new arooskaaga waa goorma new anaa kuu sheegi goortaad ka dhiganayso 3 cisho waa midhaha 3 cisho waa laxanka 3 cisho waa muusiga maalinta 10aad oo maalinta ku beegan ka dhigo 10 cisho u qabsaday lacagtii baa la kala qaatay qadaadicdii uu iska tegey ninkani marka loo dhiibay baa ugu dambeysay wuu tallaabay dhankii kale iskaga tallaabay dhankii xabashida maalintii 10aad ayaa arooskii soo baxay ninkii oo meel yaroo bunaabayda hurdaa oo ilowsan baa la toosiyey war yaa hebel hee dacaawa arooska wallah heesu iga dhan tahay wilismu dhiinba waaba dhan tahayba haye waa sameeyey dargadii baa habeenkii la xirxirayo marka kamankan uu yiri tumi jiray wuxuu kamankii halay doono isleeyahay qolada mashquul kaman lama helayay meel abakar la yiraahdo loo doonay kamankii baa dan la soo meel u baxamal uu ku jiraa inuu isbadbaadiyo rabaa arooskii soo dhax fadhiistay habeenkii injiinkii baa la shiday wixii dhugdhug lacagtina way cunay ninka waxna islama hayo eebowna mooti bay yiraahdaan aniga madiina shaqada beriga dabeet wuxuu isku furtay waa nin weyn waanoo kale sad maalintii qabataan isku furtay ma isku furtay haye wuxuu yidhi arooskiiba kulliya markaa naftigeeda waxba samayna waxaan ku weydiiyaa xaajidaada magaceed arooskii baa osooniga kuu sheegay oroni loonay maka sheeg markaasuu ku dhaxay walaal kaltuun waa hees way dhintay hees waxa la yiraahdaa kaltuun muxuu ahaayay waxa la yiraahdaa midhaha aniga sameeyay laxanka waxa uu bilaabay muusiga horu jiro qaraamiyo qaatay kurus wuxuu yidhi kaltuun cali cabdooyey kaltuun cali cabdooyey ina cali cabdooyey dadkii sacab kaltuun cali cabdo alla kaltuun cali cabdooyey ina cali cabdooyey kaltuun cali cabdooyey heesu kaltuun ma dhaafto kaltuun cali cabdooyey ina cali cabdooyey kaltuun cali cabdooyey ninkii bandhaa ku gubay عز كرتون تذكر على سوي بدلي كورس علي عبدوي كورس علي عبدوي الله كورس علي عبدوي ماشي كحولي واريا كورني كان هي صارت السلام يا دماتين وقتها قيمه تبين طبعا برنامج دعاوى الخطيب هاتم فنانين تنصل صهر فصل يعصل يعمل iyo inagoo wada san weliba aan iga reebin isaga loo san شرفت آديات آديات هي فرصة الصن هتشلعين آد وقعد كعربك آديات نقعد كالكا ولي بعض بس واد ما تنتهي ولا لا مركو واد مر لبادي مرست حد وردي ما هتنقيا قوليه إن دادين هاي برنامج هذا العسرارة سجل مصطفى يجلبه وين تهورات قوليها برنامج كفودية تونايت سوت يستراد بيوت صالون يو ستار بوكس هول كان فيكتوريا وودن هول بدل كان ما عبانو بحنا أبين كحفلتي فورتان كيسة تعال كوريا هذا هو في المجلس تعال كوريا كوريا الله يله تعال كوريا هول كان هذا المجلس وان سلام يا كوح أرجع أتبنو سلام يا لما بهذا فنك وان سلام يا دي wax kale oo isku furta karmaan faraha hadalkooda aad ugu xariifay hadalka caadiga inaan kursi cali cabdo qaadamo yaane waagay wax kale oo raada garbaad loo salaamaya annaguna aad baan kaaga mahad celinaynaa adiga iyo kooxdaada dhalinyarta u badan waa wada dhalinyarba u badan ba maahe wada dhalinyarta isku wada qoofalan laba qof mooyaan oo dhalinyar baan laba qof mooyee iyaga laftooda jacaylsan inay la baxaan bay haydeen
aad وهجاج intaasi waxaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii sanadka cusub mar labaad mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar boqolaad waxaan idin leenahay sanad wanaagsan sanadka sanadkiisa ilaahay bash barwaaqo cimri dherer iyo caafimaad iyo cibaado suuban aynu ku gaarsiiyo Are you ready for this?